wuxuu yiri xaaskayga ayaa heshay taleefankayga waxayna tirtirtay ama dareed karaysay lambarka gabadha uu xiriirka shukaansi igala dhexeeyo ee lagu magacaabo Naomi kadibna lambarkeeda ayay iigu qortay ama iigu seef garaysay magaca saaxiibtay Naomi ma ogeyn inuu qof u sheegay xaaskayga arrimaha shukaansi ee naga dhexeeya aniga iyo Naomi intaas kadib waxaan helay fariin qoraal iiga timid Naomi oo ay igu weydiisanayso ama iiga dalbanaysa lacag dhan 2,000 oo Naira ah. Naira waa lacagta dalka Nigeria. Kadib aniga oo aad u degdegaya ayaan xaaskayga u tagay beenna u sheegay ayaan ku iri waxaan u baahanahay lacag dhan 2,000 oo Naira ah waliba si degdeg ah ayaan ugu baahanahay. walaalkay oo aad u xanuunsanaya inuu lacagtaas si dhaqso ugu baahan yahay ayaan u sheegay xaaskayga. markiiba way isiisay lacagtii aan xaaskayga ka codsaday waxaana ula cararay inaan u diro akoon lambarkii ay fariin qoraalka iiga soo dirtay saaxiibtay Naomi. daawada aan ka dhexgalay lambarkan uu lacagta u dirayo waa isla lambarka xaaskiisa balse isagu ma oga oo wuxuu u haystaa inuu u dirayo Naomi. maalin shaqo oo dheer kadib gurigayga ayaan ku soo noqday ayuu leeyahay aniga oo jawi nasasho ku jira ayaan isiri talow gacalisadaadii Naomi ma heshay lacagtii aad maanta u dirtay. fariin qoraal ayaan markiiba u diray aniga oo weydiinaya inay lacagtii heshay in kale waxayse jawaabtaydu ahayd fadlan isoo wac. maba sii fadhine intaan orday ayaan bannaanka guriga oo gadaashiisa ah tegay si aan gacalisadayda u waco. shibis ka dheh waad qiyaasi kartaa wejigayga argagaxa leh markii aan taleefanka ka dhex maqlay codka xaaskayga aniga oo sugaya codka gacalisadayda Naomi. ninka sheekadan soo qoray wuxuu leeyahay 3 maalmood ka hor oo ay dhacdadaani qabsatay ilaa ay hadda bannaanka guriga ayaan taaganahay mana aqaana si aan gurigaygii ugu laabto. walle waxbaa qabsaday ninkaasi. aragtidaada daawada sideed u aragtaa ficilka ay ninkaasi xaaskiisa ku samaysay? adiga hadday arrin sidan oo kale ah ku qabsan lahayd sideed u xalin lahayd ama isku furdaamin lahayd? sheekada labaad nin baa hadda ka hor xanuunsaday xaaskiisa ayuu la dardaarmo wuxuuna dhahay kolley aniga waan dhiman rabaa markii aan geeriyoodo waxaan kaala dardaarmayaa wixii hanti ah oo dhan ee aan leeyahay midnaha ka reebin oo ila duug. islaantiisii way ka ogolaatay codsigiisii. beri dambe ninkii ayaa dhintay hanti badanna wuu ka tegay. xaaskiisii way fakartay jeeg ayay ku qortay wixii hanti ah uu lahaa oo dhan markii godkii la dhigay ayay warqadiina dhinac dhigtay sidaa ayayna hantidiisii oo dhan ku dhaxashay weliba iyadoo faraxsan oo ku qanacsan inay ballankii oofisay. inoo reeb aragtidaada muuqaalkanna saaxiibada kale la wadaaga oo inoo sheer gareeya.